isbeddelka siyaasadeed ee Amerika kadib doorashadii Joe Biden waxay dhalisay halbeeg qarsoon iyo fajac waxaana indhaha caalamkii warbaahinta lagu mashquuliyay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka gudaha Afghanistan iyo dhaqangelinta heshiiskii kooxdii Taliban iyo Afghanistan ka dagaalamaysay Mareykanka oo ka dhacay Dooxa. maxaa ku qorsoon? waxaan warbixintan ku eegi doonaa waxyaabo badan oo maskaxdaada ka dhex guuxaya. waxaa guud ahaan Mareykanka uu soo afjaray dagaalkii tooska ciidamadiisu ay ka wada jireen bariga dhexe, waana markii labaad oo ciidan kala baxo gudaha bariga dhexe iyadoo xaaladdu cirka isku sii shareerayso. intii uu joogay Trump, bariga dhexe waxaa qarka u saarnaa inuu dirir mar kale ka qaraxdo, halkaan uu ka bilowdo dagaalkii saddexaad ee adduunka. waxaa yaraaday adkaysigii dowladda Mareykanka, waxaana loo bedelay qorshaha mar kale in adduunka uu ka dhaqan galo qorshaha hiigsiga dayaxa oo dhulkana saameyn ku yeelan doono iyadoo laga tixraacaya hanaanka dhaqaalaha in wadamada lagala dagaalamo. maadaama awoodda military ee Turkiga iyo Iiraan oo kordhisay ee Mareykanka u sheegeen in laga maarmi karo saaxiibtinimada Mareykanka, dalalkuna isku filayihiin soona saaran karaan hub kala duwan ee dalalkooda ku difaacdaan iyo shacabkooda. maadaama ay xiriirka Mareykanka ee diblomaasiyadiisa iyo saaxiibtinimadiisa ay xumaatay tan iyo Trump markuu yimid, waxayna reer NATO ku keentay inay ku kala aragti duunaadaan hanaanka Mareykanku wax u doonayo. waxaa bilowday dagaal ganacsi mid diblomaasiyadeed, waxayna wadamadu ay rajeynayaan in indhaha la saaro hal walba oo diriirtu uu ka geli karo wadan kale. hubka kala duwan ee waayihii ugu dambeeyay gacan ku haynta Mareykanka uu ku sareeyay, gaar ahaan sameynta teknoolajiyadda hubka casriga ah ee wax gumaaday diyaaradaha daroonka ah, waxaa iminka kula tartamaya dalal badan oo Turkiga ku jiro, wuxuuna ka iibiyay dalal oo Mareykanku ka diiday inay ka iibsadaan goor hore. Joe Biden waxa uu maamulayaa Mareykanka, waxaana qasab ku ah 40 sano inuu dhiso xiriir diblomaasiyadeed ee la isku haleyn karo, soo celinta saaxiibtinimadii wadamada ay kala irdhooween, inuu soo afjaro siyaasadii qalafsaneyd ee Donald Trump oo dunidu ku wajahay, la hirgeliyo qorshe aan ahayn dagaal toos ah iyadoo la isticmaalayo maskax iyo cilmi ah, sareentiisana la siinayo sharciga iyo hay'adaha Mareykanka iyo laamaha sirdoonka iyadoo la adeegsanayo wax walba oo loo baahdo hay'adda cilmi baarista adduunka ee Mareykanku horkaco, inkastoo Mareykanka iyo saaxiibadiis gaarka u tahay NASA. Afghanistan waxaa lagu wareejiyay Taliban. maxaa xiga qorshe ah? reer Afghanistan maxay wajahayaan? Taliban maxaa laga filan karaa? Mareykanka maadaama dadkii uu laayay Afghanistan oo har cad iskaga hayaamay duqeymihii cirka tii dhulkan uu soo gabagaboobay 20 sano oo dirirna halkaa ay ku soo afjarmatay, kana baaqsaday inuu dagaal saddexaad ee adduunka u galo, saaxiibadiisna uu dib u soo gurto. Afghanistan maxaa xiga? aad ka damacsan yihiin Mareykanka siyaasadda halkay u wareegi doontaa? waxaa laga warsugayaa maalmaha soo socdo, waxaana tilmaam bixin doona sida Afghanistan ee kooxda Taliban u wajahdo xukunka, cidda ay soo doortaan, hanaanka diblomaasiyadda ee siyaasadda ee caalamka sidii ku wajihi lahaayeen. ma Mareykanka ayay saaxiibo ka dhigan doonaan? ma cadaawad ayay u noqon doonaan?